إلا أي هذا أنت ودين تلقور قويسس إسقور سيدا مجرى تلقور يعني إسبرد أهان دور بقول وقف بان إسبرناي الحمد لله رب العالمين وحقا يرسك عقباء جرته دادك كوال إسباري نمبر بدن بوها لكن دادك التوفيق دا إلهي وافجري دوري توقف بهاي وحا قدام بيي عبد الناصر هودن ومحافظا دقن والحمد لله 3 ويكس كهر أمهركو هل كان أنفردنو أنكو سمينا قفك لن يرى يحدنا الدعوانا guurdoonka ah gabar iyo wiil cidu doona ha ahaadee maxay u baahan inay sameeyaan talaabada ugu horeysa oo looga baahan inay qaadaan maxay tahay waan idii bushaarinay waalidkuna way nala soo xiriiraan qofkii marka diintiisa iyo akhlaaqdiisa gabadhaan xijaabkeedii iyo salaadeedii iyo edabteedii markaan wareysano shuruudeeda fiirinaa waxay rabto ka bacdina wiil kale oo isaguna liiski iyo dadkii aan haynay ay ismaaj garayn karaan ayaan isu raadinaa marka waan isbarnaa from A to Z na iyaga ayaa muxuuha ii sheekaysta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن نحفظنا مسجد كإرشاد إسلامي سنتر أو كمدة مساجد ذكية الله قبل كمينيسوتا قارة هندق مدان أنجوبنا وحايل جوجو خير الله سيش عبد الخالق أو كمدة علماء واوين الصوماليات يكون دقن جود أهان ودن كان مريكنكا gaar ahaan gobolka Minnesota wax badan oo soo qabtay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro Sheekh Abdul Khaliq waxaan isbaranay 2010 waqti dhow waqti hore weeye intaas waxaan ku aqaanay in uu bulshada u khidmeeyo masaajidada hanuuninta bulshada waxtar guud ayuu u leeyahay Sheekh Abdul Khaliq soo dhow waxaan ka sheekaysan doonaa barnaamij uu sameeyay Sheekh Abdul Khaliq oo runtii cajiib ah oo aan isleeyahay bulshada Soomaaliyeed way u baahan tahay oo aan su'aalo ka weydiin doono wax badan aan ka ogaan doono marka hore waxaan rabaa inaan sheekhu su'aal weydiiyo su'aashaas oo qof walba marti ah aan weydiiyo su'aashaas waxay tahay Sheekh Abdul Khaliq waa kuma inuu bal daqiiqad ama laba ku soo koobo bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillah Sheekh Xasan walaalkay ilaahay subhanahu wa ta'ala juhuuda iyo wanaaga iyo khayrka ummadaadu hayso iyo dacwada ilaahay kugu barakeeyo horta anigu waxaan iska ahay nin arday wali sheekh mashaayikhta waaweyn kuma jiro insha Allah dacwadaasi khayrkaas oo ayaan musharakeeyaa Abdul Khaliq Abubakar Diiriye Jiinje waxaan ku dhashay Burco ayaan ku dhashay 1969 halkaasaan ku koray anagoo 11 jira ayaan xamar imi waxaan uga baxay iskuulkii Kasbalaare ka bacdina waxaan aaday farsamadii gacanta la foole 1987 ayaan ka baxay ka bacdina 91kii waxaan aaday jaamaca islaamiya Islamic University of Medina oo ka baxay markaas waxa ilaahay ii qadaray inaan Mareykanka aan imaado anoo Sacuudiga jooga 2003 waxaan ahay aabe afar caruur ay u joogaan waxaan soo maray oo joogay walaalihii inuu xogaa mushaarakeeyaa masaajidka Raxma Phoenix Arizona ku yaala haddana waxaan joogaa oo kaalmeeya garab oo ay walaalaha masaajidka Idan Bareeri Irshaad Islamic Center waxaan u badnahay dacwadaas iyo khayrkaas hadda waxaan jeclahay yani shaqadaydu ay u badan tahay community service-ka marka laga yaabo shaqooyinka personalka oo ah barnaamijka hadda maanta walaal Xasan oo iga wareysanayo oo talaguur.com ah bal marka hore waxaan rabaa inaan su'aalka weydiiyo talaguur maxay tahay sababta oo sameyseen bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillah talaguur waxaan u sameynay sababtaan u sameynay waxay tahay markaan aragnay dhalinyarada qurbaha jooga khaas ahaan wadanka Mareykanka khaas ahaan magaalada Minneapolis iyo magaalooyin kale dadka Soomaalida ay u badan yihiin in guurkii yaraaday oo zinadii ay faaftay oo xumaantii ay badatay baan aniga iyo walaalo kale oo khayr badan anigu kaligii ma aanan samayn organizationka walaalo dhowr iyo 10 ah ayaa ila sameeyay khayr badan oo nin kastaaba hadda Mareykanka meel ka joogo waxaan ku tashanay da'yartaas inaan ilaahay ugu dhawaano inaan isu qalqaarino arrin baa jirta dadka waalidka iska dhaadhiciyeen Mareykanka jooga oo ah in ilmo kastaaba choice loo siiyo inuu isagu wax raadsado arrintaas waxay keentay delay badan waxaan marka aan goosanay inaan dhalinyarada isu qalqaalino isbarno alxamdulillah waana ka sheekeyn doonaa waa la isbartay oo waa la isguursaday ما شاء الله
tala guur waxaa ka asaasteen gobolka Minnesota markii ugu horeysay mise goboladii kale ee deganaa sida Arizona oo kale hore waad u waday hawshaas ka hawlahaan guurka maalintii aan imaamka ka ahaa masaajidka الرحمة الحمد لله ولا لها قار سبب إلهي قيالي ويسكور سيدي ويجرين وقتي قاوان وذي لكن سي بروفيشنالا والرسمية وحانو قبلوني قبل كان مينيسوتا اوكي sidoo u shaqeeya marka tala guur sheekh qofka mashruudaad ayaa ku xiraysan oo shuruud waxa jira looga baahan yahay uu yahay wiil ama haday tahay gabar ha waxaan soo fiirinaa oo priority-ga siinaa iyadoo haddana qorshaha inoogu jirto dadka dhalinyarada waxoogaa nolosha ka dhacda soo fiicnaan iyaga laftooda inaan isku aadino laakiin priority-ga waxaan siinaa akhlaaqda iyo diinta annagoo ka intilaaqan xadiiskii nabiga idaa jaakum man tardawna diinahu wa khuluqahu fazawijuuh xadiidkaas nebigu qofka wuxuu amray weliga ah ee gabadha mas-uulka ah haddii qof diin leh oo akhlaaq leh u yimaado in yacni loo fududeeyo wax kale aan la fiirin qofkaasoo isagoo awooda qofka inuu yacni mas-uul ka noqdo marka labada qof waxaanu samaynaa waan waraysanaa waana idii bishaaraynaya waalidkuna waynala soo xidhiidhaan qofkii marka diintiisa iyo akhlaaqdiisa gabadh ahaan xijaabkeedii iyo salaadeedii iyo edabteedii markaan waraysanno shuruuddeedaan fiirinaa waxay rabto kabacdina wiil kale oo isaguna liiskii iyo dadkii aan haynay ay ismaajgarayn karaan ayaan isu raadinaa marka waan isbarnaa from A to Z-na iyaga ayaa muxuu ahaa ii sheekaysta ilaa ay hadda inta aad wadeen tala guur qoysas isguursada ma jiraan tala guur horta yani ka isbarid ahaan dhowr boqoloo qof baanu isbarnay alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxoogaa yar iska caqabaa jirta xadiis baa nebiga wuxuu ku leeyahay waqti ma jiro ilaa waqtiga ka dambeeya ka fidno badan dadku waa la isbaray number badan buu ahaa laakiin dadka tawfiiqda ilaahay waafajiyay dhowr iyo 10 qof bay ahaayeen waxaa ugu dambeeyey cabdinaasir iyo hodan waa maxaafadan degan oo alxamdulilah 3 weeks ka hor meherkoodii halkan aan fadhino aan ku samaynay marka alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waa la isguursaday sangaloor 2 qof oo walaala ah oo jooga dadkan faraha ku fiiqi karo xasan iyo deeqa ayaa ka mid ahaa dadka marka dhowr iyo 10 qof ee walaalaha ilaahay nasiib buu isaga yeelay reeray leeyihiin way wada joogaan maanta waxaan rabaa inaan u soo qaadano tusaale ahaan qoyska ugu dambeeyay dhowr week ka hor isku guursaday degmada hadda aad joogno markii ugu horeysay waxa isdiiwaan geliyay gabadha mise wiilka mise labadooda isla socdo markii hore waxa yimi walaal Cabdinaasir bay la soo hadlay oo khayr iyo wanaag ku tuumayo aqoon ayuu ku lahaay website ma gelin maya wuxuu isoo weydiiyey oo iga soo warstay dadka kabacdi Cabdinaasir markuu isoo wacay waxaan ku yiri waxa jira wax la yiraahdo tazkiya qofka markaad rabto inaad qof u geyso waa inaad background check-giisa haysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam gabadh baa u timi 3 nin bay u sheegtay 3dii wuxuu yiri ka iska daawir waa sacaloog yani nin lacag haysta ma nin yani manti haysto ku gursan kara ma midna wuxuu yiri usha gacanta kama dhigo waa dilaa ninka kala gursuin anagoo taa ka intilaaqayna ayaa waxaan sameynaa qofka marka uu guur rabo waxaan ka wareysanaa qof isaga yaqaan Sheekh Cabdinaasir markuu yimi alxamdulilah yaa ku yaqaanaan ku yiri Cabdilaahi Ibraahim buu ii sheegay Sheekh Cabdilaahi waan ka wareystay kabacdina Cabdinaasir waxaan baray hodan oo igu soo hadhay hodan hore u taqaan hodan maya waxa igu soo hadhay walaal Xaliimo oo halkan degan hodan oo marka yani Xaliima ii sheegtay ya Cabdinaasir baan isbaray iyaga sheekaystay hawshooda dhamaystay waxa ku xigay marka waa meherkii baa ku xigay qofka dhalinyarada ah ee haddana daawanaya ee guurdoonka ah gabar iyo wiil cidoo doona ha ahaadee maxay u baahan inay sameeyaan talaabada ugu horeysa oo looga baahan inay qaadaan maxay tahay qofka dhalinyarada ah ee Mareykanka maanka jooga ama qurbaha jooga ee raba inuu guursado awalan waxaan u dardaarmayaa inuu diinta Ilaahay inuu isdhiso oo qofkaas quraanka xifdiyo oo qof طالب العلم oo noqdo oo akhlaaqiyadka iska dhiso waxyaalaha miidiyaha macsida keenaya ama dhunuubta inuu iska ilaalisaniyo khamiis oo kale inuu soomo habeenkii inuu kaco masaajidda dacwada ka socota inuu mushaarakeeyo qofkii oo saasa waxaan kula talinayaa ka wiilahaan maadaama isagu uu noqonayo qofkii guriga ka mas'uulka ah ee expenseska iyo hawsha mas'uuliyadda ay ku socotay ilaahayna wuu sheegay rijaalu qawaamuuna cala الnisaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin
وبما أنفقوا نفقدي لقربه waxaan ninka dhalinyarada leeyahay yani jaacadaada markaad dhamaysato dhowrkaas sano afartaas sano waxaad isku daydaa shaqo inaad raadsatid inta yani part time aad jaacada dhiganaya ee hooyana u sheeg ayuutaha kuu gasho 30 kun adigoo haysta shaqo fiicanna helay markaa 3 sano 4 sano aad isku dhigsto adigoo wixii aad ku geli lahayd arooskana haysta leena hooyo aaba dhimaysto oo ku soo koriyeen waxay noqonaysaa marka inaad insha Allah aad raadsato qofkii markaa munaasibka ku ahaa waxaanad ku raadinaysaa diinta iyo akhlaaqda ilaahaydanka insha Allah taas waa diyaar garowgii waa gartay tusaale ahaan shuruudahaas dhan ayuu soo buuxiyey diintiisa soo dhisay waxbuu seef garaystay hooyo ayuutu u gashay talaguur.com ayuu galay maxay tahay talaabada la rabo inuu qaado si uu u helo gabar waxaan gelinay raqamkayagii ama nambarkayga ku jira qofka nambarku soo qaadanaya anuu ila soo xidhiidhaya anigana liiskii baan hayaa wiilkaas markuu ila soo xidhiidho waan raadinayaa qof baan ka wareysanaya markaan ogaado qof fiican inuu yahay gabdhihii liiskii aan hayay qof maajgarayn kara ayaan u sheegay markaa saasaan ku shaqeynaa waan gartay hadda gabdho liiska ku jira oo haysan ma jiraan lama dhow 30 gabdhood baan haynaa maasha Allah alxamdulillah dhalinyaro u badan oo guurdoona arrintaasna waxay beenisay aanan dhihine run ahaantii yani kasoo yar horjeedaa arrintii la oran jiray caruurta iyaga ayaa wax doonta waxay noqotay waalidiin inay nala soo xidhiidhaan awlaadooda anagu secret weeye qofka markuu nala soo xidhiidho hawshiisa si private yani maarata u haynaa laakiin waalid badan oo khayr badan oo nala soo xidhiidhay oo le gabadhan ay joogto qof baan u raadinayaa wiilkana ii joogo qof baan u raadinayaa ayaa jira marka liiskaas hadda waan haynaa alxamdulillah marka gabdhaha hadda diiwaangashan waa sodomeeyo wiilal diiwaangashan ma jiraan wiilasha haddaan runku u sheego sheekh xasan wiilasha dhalinyarada ah ee Mareykanka jooga hadda waxaa jira wiilal dhalinyaro oo badan oo hadda by the age u dhaxeeya 18 ilaa 23 oo soo socdo fara badan oo guurka u diyaar garoobaya laakiin wiilasha dhalinyarada ah ee jaamacadaha ka baxay ee aad yani maaragtay diinta iyo masaajidda lagu soo tarbiyey in badan oo kamid ah way guursadeen oo reeray yeesheen laakiin hadda daayirtan soo socota ayaan ilaahay idinka waxaan ka rajaynaynaa inay guursadaan marka khaas hadda xaaliyan waxaa jira nin dhalinyaro ah oo aabihii ila soo xidhiidhay 3 habeen ka hor ayaan gabar baray dadka aan haynaa hadda xaaliyan waa dad yar waaweyn laakiin dhalinyaro ahaan ninkaa dhalinyarada ah ayaa jira oo soo maray ninkiina gabar baan baray qof baa laga yaabaa inuu hor u soo guursado hor u soo guursado hor u soo guursado haddana waa guurdo iyagu wax gabadha ma haysaa wiilashaas de ragga hore u soo guursaday allaha barakeeyo waa qof wax soo arkay trainingkiisana wuu qabaa nacam qof yani gabdhaha qaar iyagu laftooda soo guursaday liiskooda waa haynaa ragga qaar ee walaalaha ee hore u soo marayna qayb ka mid ah liiskoodii waan haynaa waan isku aadinaa alxamdulillah dadka doonaya inay isguursadaan tala guur ay u hayso in ay ama gabdho baraan ama wiilal ay baraan shardiga ma inay Minnesota kaliya joogaana mise gobol kasta oo Mareykan ka mid ah amaba xataa Soomaaliya ama adduunka meel kasta ka joogaan waa la bari karaa شخصاً أو حق يعني قفكو وحافي عن إنه ريالتي يكون هذا دتك هذا يسكور سنة هي رم بكل شيء وأمريكانك الحديثة ولما إنكستا هذا أنت وجو بدنا ومقالدنا نشوفنا مينيابوليس وحنا قلت دتك اللي يرادا عامهان رنت سبحان الله أنا وقف إيديستو أما قف كندا هتشوفه أما يوروب هتشوفه أما أفريقيا هتشوفه هدي قف اللي يرادا هذا هيسيد وجول أي ربطه ma rabto inay meel kale ay aado kanadaas ugu dhow way yar adag tahay gabdhuhu inay aqbalaan waxay rabtaa meesha ay joogto wiil dhalinyaro ah oo la jooga ay rabtaa laakiin waxaa jira arrimo fiican waxaa jira gabdho ilaahay wajigooda ha nuuriya iyagu kanada ka guursada kuwa Yurub ka soo guursada kuwa Afrika tago ka soo guursada laakiin number ahaan marka la fiiriyo waa number aad iyo aad u yar wey wiil wanaagsan oo diintiisa bartay doonayo gabar wanaagsan oo Mareykanka joogta inuu helo laakiin isaga Afrika ku nool haduu in la soo xiriiro tusaale ahaan la tala guur waa website qof kasta gali kara oo telefoonka inta ka helo oo Shacab Khaalid soo waco oo yiraahdo waxaan rabaa gabar joogta Seattle ama Minneapolis joogta ma laga yaabaa inuu helo gabar u qalanta oo ku qanacda haday matqaana sheekaystaan sheekhay arintaas waa tan hada sheegayay way adag tahay baan leeyahay yar adag tahay dheer لأن قف كان إساق إياد لهاد ليسا وحو دادك قار
fikrad qaldan baa jirta waxaa laga yaabaa inay yidhahdaan qofkan wuxuu kaa rabaa inaad soo dhoofiso oo kale waa wax reality talabaad iyada lafteeda inaad naga faa'iidaysan waxaa jira rag dhalinyaro ah oo ama Pakistan ama India ama Malaysia ama Afrika gabdhaha qaar ay ka keeneen Maraykanka markii ay keeneen inay isguursadeen reerihii waxaa la arkaa qaarkood inay burbureen marka halkaa laftooda waxaa ka soo noqday waxoogaa gabdhaha qaar waxaa laga yaabaa inay yani iyagu maadaama arrinta ay ku dhaceen dad kale u sheekeeyaan marka taasna way jirtaa wax soo noqday talabaadna majority ahaan gabdhaha dhalinyarada halkan jooga waxay jecel yihiin qof la jooga isaga waxaan soo booqday xafiiskiina maasha Allah tiim ayaa kula shaqeeya waqti badan ayaad gelisaan arrinkan degmooyin ka tirsan gobolka Minnesota soo booqataan dacwad ku dhex wadaan dhalinyarada aad wacyi gelisaan yaa idinka caawiya xagga budgetinka iyo dhaqaalaha bulshadana daawanaysana haddii doonayaan inay garab istaagaan talo guur maxaa ku baaqaysaa waxaan awalan aan ku wadnay dhowrkaa sano volunteer walaalaha khayrka badan ee ama masaajidka jooga ama aan garanayno waa markii aan samaynayno xaflad ama aan meel aadayno aanu insha allahu tacaala taarget garayna laakiin waxaan ku bishaaraynaya walaalaha waraaqihii 501c3gii iyo hawshii alxamdulillah qaarna waa soo saarnay bangigiina dhowaan baan furaynaa hawsha marka legalitiga by 1 month meelahaas inaan ku dhammaynaan jecelahay taasi marka ay dhacdo waxaan yeelan doonaa accountkaasa marka qofkii rabaa inuu na saacido oo nala qabto hawshan iyada ah oo ilaahay iidankii insha allah uu maaragtay kusoo shubi doonaa waxaan aaminsanahay barnaamijkan aad haysaan inuu yahay mid muhiim bulshada u ah maadaama aan aragno dhalinyaro badan oo guurkii yani iska galay iyagoon aqoon u lahayn iyagoo aanan haysanin training fara badan waa la guursadaa inta u guursadana guriga si fudud oo ku burburo marka inaad dhalinyarada wacyi gelisaan iyagoo diyaarsan oo garaadsaday intaanay guursanin ay guursadaan waa wax weyn maxaa marka kusoo gabagabayn lahayd intaanan soo gabagabayn hal arrin oon kaa codsanayaa jira waxaan jeclahay inaan xuso u duceeyo tiimka tala guur walaalihii hawshan bilaabay oo ku jiro alakh cali xidig cali sheekh uu ka mid yahay walaal hana ay ka mid tahay sheekh cabdiraxmaan uu ka mid yahay dirir uu ka mid yahay cabdirasaaq phoenix walaal cabdirasaaq uu ka mid yahay khaliif uu ka mid yahay maxamed oo degan isaguna iigan uu ka mid yahay sheekh xuseen oo rochester shalay nala joogay walaal jaamac halkan jooga adeer ilaahay wejigiisa ha nooriye isagana maxamed dadka walaalaha khaalid yara oo halkan nala jooga iyo ibraahim walaalahaasu number ilaa maanta 17 ay ku dhow yihiin hadda waxaa si rasmiya ugu yar badan organizationka aniga sheekh xuseen iyo walaalka muxuu ahaa ii sheeg jaamac iyo muxuu ahaa ii sheeg ilaa 3-4 qof khaalid yare iyo ilaa 5 qof baan nahay waxaan ilaaway lafdhabartii walaal fawzi oo saakayna la joogay oo qolkaas isaga iyo bashiir oo treasureka masaajidkana ay wax ka asaaseen waxa fadligu uu noqonaya marka walaalaha laga yimaado masaajidka iidan bareeray saakaan joogno walaalaha qolkaa bixiyey muxuu ahaa ii sheegna karaameeyey na soo dhoweeyey na sharfay wax kasta oo facilitya noo sahlay ilahay waxaan ka baryayaa bildinkaas saakaan ku jirnay ee la iibinayo inuu ilahay u fududeeyo annaguna garab baanu nahay waxa weye masaajidka qeyb baan kana wixii hawlihii masaajidka waxbaan kaga darsan taas waa yani uga faaidaysan laha laakiin gabagabada iyo gunaanadka waxaan leeyahay dhalinyarada fasaadkan badan iyo fitankan badan qofka maanta Maraykan iyo Yurub jooga ama qurba jooga wuxuu ga badbaadi karaa markuu diintiisa iyo akhlaaqdiisa uu barto oo ilaashado in uu guur xalaala uu ku dadaalo waxaan hubaa oo in badan aan arag ninka dhalinyarada markuu guursado inuu noqonayo qof u dhaxeeya shaqadiisa gurigiisa masjidka iyo dacwada marka si ilaahay subxaanahu wa tacaala shahwadaada meel xalaala uu u dhigo mustaqbalkaaga iyo diintaadana kugu fiicneeyo waxaan ku odhan lahaa shakiga badan iska daa dadku malaa'ig maaha waa bashar qofkanaad raadinaysaa waa qof kula mida qofka diintiisa awalan ka fiiri akhlaaqdiisana ka fiiri waxaan ka digayaa waxyaalaha qaar marka qaar qofku ku talax tegayo oo ay ka mid tahay qabiilka oo kale in yani qofku uu priority ka dhigo ama lacag badan uu raadiyo ama qurux sida six bag oo kale waxyaalahaas waa wax qofku uu yar isticmaali karo laakiin awalan qabla kulli shay diinta iyo akhlaaqdaas ina yani qofku uu iska dhiso oo raadiyo qof munaasib u ah
oo nolosha la qaybsanaya oo sidiisoo kale bashar ah. waxaan odhan lahaa marka dhalinyarada walaalayaal guurka ha la badiyo oo ha la fududeeyo arrinta oo gobol kastoo Maraykanka ah iyo Yurub insha Allah walaalaha waxaan leeyahay aynu ka fakarno. hadda kahor walaalana kala soo haray Canada jiray oo iyaguna arrintaa rabay inay sameeyaan. waxaan ku soo gabagabeynayaa oo kale qofka dhalinyarada waxaa noogu jira niyadda inaan training sameyno meelaha Malaysia oo kale iyo gobolka Maraykanka aan joogno Dallas oo kale waxaa jira niman walaalo ah organization furay waxay sameeyaan qofku intuuna guursan ayaa waxaa loo samaynayaa training habkii uu xaaska ula sheekaysan lahaa gurigooda suu noqon lahaa say u wada dhaqmi lahaayeen. taas marka trainingka laftiisa waan ku insha Allah waxyaalaha aan rabno inaan saxno aan dhammayno ayay ku jiraan insha Allah haddii Ilaahay ka dhigo. jazakumullahu khayr rabsi sheekhi. waxaan rajaynayaa in walaalaha la daawanayana ay la soo xiriiri doonaan ciddii guurdoona insha Allah kadibna Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu saali doono guur wanaagsan oo ay ku qancaan. aad u mahadsan tahay waqti wanaagsan ma wada qaadanay. ofisku wuxuu ku yaalaa masaajidka Islamic waxaana Irshaad Islamic Center waa Eden Bareeri. qofkii raba inuu soo xiriiro nambarkaygu waa 602-358-1124. sidoo kale anaguna ani ahaan iyo walaalaha masaajidkan idaarada iyo imaam ahaanba Sheekh Tayyib iyo walaalaha kale iyo aniga Cabdikhaaliq qaba waxaan aad iyo aad anigu yani bacda shukrillaah anigu mahadinaynaa walaal Xasan oo masaafo dheer ka yimi oo Seattle nooga yimi oo nala joogay oo dhaxanta aad arkaysaan maalintii Jimcaha Khamiistan halkan kan ka wada sameynay muxaadaraadkii iyo duruustii xalayna aan tagnay iyadoo qabow Rochester aan aadnay. Xasan walaal Ilaahay subxaanahu wa ta'aala juhdigaaga barakeeyo reerka Allah ku barakeeyo risqiga Allah ku waasiciyo Allah ka raali noqdo adduunyo aakhira. jazakumullahu khayr. assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. خير لك بارك الله فيك. جزاك الله خير. بارك الله فيك.